maalmahan waxaa jirtay sheegasho cusub oo casri ah waxa weeyo nimankii family Garawe oo qaar kamid ah markaan ka hadlaya maaha mujtamaca bari iyo nugaal degan ee sharafta leh waa siyaasiyiinta family Garawe oo kaya arbuun oga qaatay gobolada Juba qayb kamid ah badwala birri markii ay socon weyday bariyahan waxay bilaabeen sheegasho sida ogtihiinba sitimaan ka hor kooxda qowsaarada ahayd oo kaya qowsaarada waa qaar kamid ah waa kuwii Garawe ugu yeeray waayahan oo dhan ayaga loo daabacayay waxaan leeyahay kooxda family Garawe warana sheeganina nalama sheegto hadii nala sheegtana warar ka shalaayay hana sheeganina gabaynin hore uu tiriyay baa jiro ah shafna looma tumo goob dagaal ama shahiidiyaal libin loo shuruutanayaan shiriga raacda shusheeyo iyo sukayaba horu nooga mareysheedo cadka yaga nin shiiqsada waa shun kasto yahay waxaan idin leenahay dad la sheegto waa ka lix kornay dadka waaya araga 100 sano soo dhaafnay wax weydiiya 1920kii daraawiishtii Sheekh Maxamed Cabdulla Xasan Allah ya raxmo markay jabtay 100 sano buuxsantay 100 ka sano ayadoo Ingiriis oo laba qaybood oo dhinaca NFD iyo dhinaca Juba Baardheer ilaa Bu'aaliya Saako iyo Jilib iyo Kismaayo Jamaame labada qaybood oo qaybta wabiga iyo qaybta xuduudka NFD Ingiriis oo laba qaybood iyo Talyaani iyo Xabashi boqol guurada waxaan idinku soo qaadayaa waasaas haday jiraan dad wax yaqaano wax la weydiiyo dadka reegada kuwa ay yihiin weydiiya hadaad wax garataan 10 sano oo aad tigreega iyo kayaanka dilaalka ka ahaydeen family Garawe ayadana dib u xasuusta 10 ka sano haday tahay argagixiso haday tahay jamhadii wayaanada EBRDF maqalla laga soo diray iyo haday tahay sawaaxiligi kookooyada ah ee dhulka ka iibsateen haday abayaashin NFD iibsadeen oo dadka deegaanka gaarisa iyo wajeer iyo degan dhulkaas waajibaadkoodii ay ka hoos dhaceen waayeelkadooda annaga sharaf iyo Soomaalinimo nala ku sheegan karaa waxna nala lagu yeelan karaa man nala sheegan karo waxaan idin leeyahay arinta ayada waan idin aragnaa waxa weey adigoon dabaal baran hadaad wabiga doonaysa dunka hoose goorta tagtaa dugay tiraahdaa ee dubu joodsa wiiliyo intaan dalowga ka tuurin waa wax idin yaal dadka degan dhulka gobolada Juba iyo NFD oo walaalaha ah oo gaalada cawaanka qaarna laga iibsaday 1967 qaarna arbuunta looga qaatay 2009 oo isku midkoo isku aabaha oo kuwana xornimada ay ku dhasheen iyo sharafka ay u dirirayaan kuwana inay xornimo helaan ay rajada ka qabaan hadii koox fulaya ah oo meesha raga ku haasaawayaan imaan karina luuqluuqyada telefoonka ka soo diraysa idinku yiraahdeen ciidamada waa laga saaraya gobolka Gado ciidanka Malkaariye iyo Hareeri Hoosle iyo balad xaawo jooga wuxuu u socdaa Ceelwaaq Gariley Diif Doobley meesha la yiraahdo Hoosungow Kulbiyow Raasiga Kaamboni adoonta xunta oo sawaaxiliga oo Kismaayo afmadow joogtana halkaas ay ku go'doonaysaa dhamaanteed qabriyadeeda meesha ka qodan waayahay waxaan idinku bishaareynaa inta wiil nool yahay gabartaana inay ciil qabi doonin sida waynu isognahay markuu gabdhaha ay dhagaxa taangiga cagafka kula dagaalamayeen rag baayadana shaqada dhinacooda ka waday dad sharaf loo walaalo isla dhashay oo kuwa Juba iyo kuwa NFD ba wada sharaf leh oo dadka xukunkooda madiidinka ah oo ay gaaladu rarato rabaayaysato kalbusayka markii laga reebo xurmale weeye dadka halka degan waxaan idinku bishaareynaa kuwa fulayada ah oo aan fagaaraha ka haasaawi karin waxa ay sheegayaan waa been ciidankaanu intii caalanka baluuga oo xorta uu maray oo ciideedu u geysay inuu xoreeyo ciidanka gafuur culusta ee Raas Kaamboni Buurgaabo Kudhaa Kismaayo marsooyinkeena dhuxusha ka jarayo dhoofinayo iyo sonkorta kantarbaanka ka dhoofinayo way kuwa dhimanayo ninkii dhoof ku yimid bay geeridu dhibaysaa
waayahay inta shacabka Soomaaliyeed maamul ay u dhan yihiin ay ka dhisanayaan kooxda Kenyaanka la socoto waxay dambi ka yihiin gobolka Gado iyo goob kasta oo Soomaaliga laga xoreeyo waa dambiilayaal ka fog ururka argagixisada Al-Shabaab iyo ISIS iyo kuwa la midka ka fog sababtoo ay kuwa argagixisada dadkana waa dilayaan dadka caqiidadiisana waa qaloocinayaan laakiin ciidu halkeed ay ku oolaysaa kuwa kalbusaydka ah gafur culus la socda laakiin ciidu ay bixinayaan dadku dhamaantii waana dhalanaya waana dhimanaya qof noolaanaya ma jiro ninku hadduu dhinto bedelkiisii nin gabar u dhashay oo sharaf laha bedelayo laakiin hal taako oo ciida gabaruna ma dhasho waxa weeye goob kalena lagama keeno dhiig loo daadiyo iyo dhaqaala dhulka lagu yeeshaa kuwa qaayniinta oo adoonta RFD haysatay jawaasiista waa dambiilayaal goob kasta oo lagu arko waa lagu dilayaa kii ka tooba keenana waxa la marinayaa system lamida systemka la mariyo argagixisada mid ka fog waxaan marka ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayaa ciidu Soomaali bay ka dhaxaysaa dadka sharafka leh oo NFD joogo oo adoontu ay guumaysatay ciidooda waa ciida Juba dadka sharafka leh oo halgamayo ama qalbiga ka halgamayo ama adimaha ku halgamayo ama akhriska iyo diinta ku halgamayo ama anfacada bixinayo reer Juba iyo dadka la guumaysto NFD joogo iyo kuwa gobolada fog jiray ciidu u dhaxaysaa waxa weeye marka dawladda Soomaaliyeed waxa laga rabaa cudud difaaco ciidda ay ku difaacdo iyo caadili ummadda deeqa laga rabaa gabay baan xasuustay marka waxyaabaha qaarkood maqlo sideetabeeyadii kooxdii balanballe iyo galdogob amxaarada ay ku qabsatay ba caasimada soo gashay markaas darajo iyo xilal la siiyay alla ya raxmo wadaad Cabdiqaadir Xirsi yamyam la oran jiray ba gabaykiisa waxa ku jirtay ilaan caalanka karugo abaalkii magaratida hadba kii gambiyay gacan saar la leedahay dawladana waxaan leenahay haddii ninkii dadkana laayay dalkana khaaibay cadawga u adeegayay al-Cizaysaan bini aadamku kal cabsatu leeyahay kal xishoota malaha la yiri mid badan oo qalbiyadii uu ku cabsoon lahaa ku raadiyo inuu dad Soomaaliyeed laayo ama dal Soomaaliyeed cadow kula shuraakooba inuu soo baxaa dhici karto aridillah naayo idinku soo koobaya dawladda Soomaaliyeed waxa la idinka rabaa cudud dalka lagu difaaco iyo cadli ummadda Soomaaliyeed loo cadli falo oo ninkii ciida khaaimana laga jizeeyo ninkii dad shacab oo Soomaaliyeed oo aan wax dhimin laayeen laga jizeeyo ninkii sharaf loo ciida difaaco oo sharaf iyo cizi iyo Soomaalinimo ku difaacana lagu dalacsiyo lagu abaal mariyaa la idinka rabaa ha idin kala tilmaameen dadka u dhaxaysaan waxaan ku celinayaa gobolka Gada ma aha meel la sheegto ninka gobolka Gada sheeganayo garawa fariidaha ka soo qorayo 100 sano tirso raasad dad maxaa amxaaray reegada kala qabsaday maxaa reegada iyo Talyaani kala qabsaday maxaa reegada iyo kala qabsaday Ingiriis maxaa reegada iyo kala qabsaday gaalo dhan iyo qeyrkeed كايمو طبعا كسنة سياسيين تجروا أي دلالين تكاين أرسلوا نيروبي أدونتي لسوا حوله ولا سوا كحيو إلا سرين ليلا كيريا إلا على عدا حاجة يكون بيسا ما قادرنا ما نلا شيكته شرف إياه ولا لما عدي وحنقول له وأما نقول حكمته أما نقول السمن أما وحنقول له وأقولنا لكن وإذن أرقت دير بانديكو أرقنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام يا بادين الصحافة مرحلة شعبك الصوماليين inaad baraarujisaan oo been baa loo sheegayaa oo waxa weeyo kuwa guumaysiga hoos joog oo la baxay saamilayda siyaasadda saami waxa la yiraahdaa xoolaha markii la soo dhaco geela la booliyado ragga qoryaha wata qaybsado saami loo yiraahdaa dhamaanka iyo kuwii la macaamilay oo xukuumadii kala duwanaa isu soo bedelay baa waxay la bixin saamilayda siyaasadda oo hurakayaata ku xiran waxa la saayadayna waa ciidayadaas u geysay caalanka baluuga jiritaankiisa ما عز يا صومالي ما واحد سامري سياسة الغرب بحي عاوي مركا واحد عناصير تاع الشعب كيا واحد يشجع يا ربنا تا واحد غيرنا وشجنا نحقول لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.